Maalmihi siyaad bare 22 Oktoobar 1969 kacaankii Soomaaliya waxa uu dhacay 21 Oktoobar 1969 kaasoo horkacay Maxamed Siyaad Barre iyo golihiisii sare ee kacaanka. kacdoonkan aan dhiig ku daadan ayaa yimid kadib markii la dilay madaxweynihii dalka Jaale 15 Oktoobar 1969 ayaa la dilay madaxweynihii dalka Jaale kaasoo uu dilay mid ka mid ah ilaaladiisii asigoo markaas booqasho ku joogay magaalada Laascaanood ee waqooyiga dalka. 5 maalin kadib dhimashada madaxweynaha waxaa dalka afgami ku qabsaday Jaale Siyaad Barre iyo golihiisii Towrada. waxaa habeenkaas xabsiga dhigay madax badan oo ugu horeeya madaxii hore ee Soomaaliya Mukhtaar oo ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo madaxweynihii hore Aadan Cadde iyo rag kale oo badan ayaa waxaa habeenkaas lagu xiray beerta Sheekh Saacid ee Afgoy ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. waxaa kale oo habeenkaas la mamnuucay isku soo baxa shirarka gaarka ah dalkana waxaa lagu soo rogay nidaam adag oo lagu xukumayo. waxay kaloo si aad uga faa'iideysteen saraakiishii inqilaabta waddanka dhanka raadiyoga iyo fanka sida uu ku warramay fanaanka caanka ee Axmed Naaji Sacad oo markaas ay furayaashii raadiyo Muqdisho intooda badneed. Axmed Naaji waxaa guriga lagu soo garaacay 3dii habeenimo ee kacaanka waxaana loo waday xaggaas iyo raadiyo Muqdisho. intii ay wadada ku sii socdeen saraakiishii waday Axmed Naaji waxay adeegsanayeen erayo isla fahmayaan sida qurac iyo qansax. markii la geeyay Axmed Naaji idaacadda wuxuu halkaas kula kulmay fanaaniintii dalka intooda badneed kuwaasoo iyagana habeenkaas hurdada loo diiday. halkaas ayaa loogu sheegay in dalka kacaanka dhashay loona baahay in dadka gubaabiyaan. fanaaniinta ayaa halkaas waxay ku qoreen heestii u horeysay ee kacaanka lagu ayidayo miraheedana waxaa lahaa Cali Sugulle iyo Axmed Naaji. waxaana heesta miraheedii ka mid ahay Oktoobar waa daruur hilaacday Soomaalida u daaday xoogii baa dadaalo xukunka dalka haystee inaguna waa ku raacnaa hambalyadii. heestaas oo ay xifdinayeen ilaa 6 subaxnimo xilligaas oo ay soo geli jirtay idaacadda. waxaa isna habeenkaas la afduubtay Sheekh Maxamed oo ahaa wadaadkii ku furay jiray quraanka idaacadda halka wariye lagu magacaabo Cabdullaahi oo ku furtay maalintaas wararka. idaacadda halkii laga dhigi jiray halkaana waa raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda waxaa lagu bedelay halkaana waa raadiyo Muqdisho codka ummadda Soomaaliyeed. khudbadii ugu horeysay ee madaxweyne Siyaad Barre wuxuu uga hadlay arrimo dhowr ah sida hantida qaranka oo la luusaday canshuurihii jaabka lagu shubtay iyo musuqa oo hareey waddanka oo ugu horeeyay dilkii madaxweynaha. ciidamadii iyo ardadii iyo macallimiintii iyo shaqaalihii iyo iskaashatooyinkii iyo hooyooyin ardadan aad u dhaliya oo aad moodo waxaan ammaan iyo bogaadinba u soo jeedinayaa wasaaradda iyo xisbiga. haddaba maxaa lagu xawsan karaa madaxweyne Siyaad Barre? Jaale Maxamed Siyaad wuxuu ahaa afhayeenkii iyo hogaamiyihii kacaanka isagoo xogahayaal ka dhigtay raggii ay inqilaabka isla wadeen. waxaana ka mid ahaa Salaad Gabeere Maxamed Caananshe iyo rag kale. dadkii iska dilay kacaanka waxaa loo bixiyay kacaandiid taasoo dadka ku abuurtay cabsi badan. maxaa yeelay qofka arrintaas lagu tuhmo waxaa lagula kala jiray arrimo xun oo xarig u ron yahay. 22 Janawari 1971 waxaa la dhisay guddigii af Soomaaliga guddigaas oo ka koobnaa 22 qofood. waxaa sameeyay golihii sare ee kacaanka si ay u sameeyaan xarfaha ugu habboon ee lagu qoray afka Soomaaliga. 5 May 1971 Maxamed Siyaad Barre wuxuu xiray raggii ugu sareeyay kacaanka sida Salaad Gabeere oo ahaa ku-xigeenkii Siyaad Barre iyo aabihii kacaanka. waxaa kaloo la xiray Maxamed Caananshe labadaba waxaa laga saaray golihii sare ee kacaanka. markii dambena waxaa labadoodaba lagu togtay iskool bulisi. sanadii 1974 dowladda Soomaaliya waxay ku biirtay jaamacadda Carabta. isla sanadkaas madaxweyne Siyaad Barre wuxuu noqday madaxweynihii midowga Afrika. shir madaxaadka Afrikana waxaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho.
11 January 1975 madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka qoyska kaasoo ku sameeyay dhaxalka ragga iyo dumarka labadaba inay sameeyeen rag iyo haween inay sameeyeen dadka joojin la joojiyo oo la xaqiijiyo oo muran la'aan laga dhigo dadka caalamiga inay isku xaqiiqeen horta xaalku meesha usla socda ka weey isagoo ilaa culamadii ka hortimid go'aankiisa 23 bishaas golihii sare ee kacaanka ayaa 1976 isku bedelay xisbiga hatiwadaaga kacaanka ummadda Soomaaliyeed iyagoo isku dayay inay iswaafajiyaan diinta islaamka iyo aragtida shuuciyadda July 1977 waxaa dagaal dhex maray dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya kuwaasoo ku dagaalamay dhulka kadinka shanaad inta aan la gaarin September ciidamada Soomaalida waxay gacanta ku dhigeen 90% dhulkaas oo maanta loogu yeero Ogaadeniya ilaa ay markii dambe xabashida ay u soo heliyeen Ruushka iyo Kuuba Soomaalida halkaas ay ku jiraan 9 Abriil 1978 waxaa dhacay inqilaab la magana xukuumadii Siyaad Barre 17 ka mid ah dadkii inqilaabkoodana waa la tugtay xilligaas ayuu Cabdullaahi Yuusuf Axmed ka baxsaday wadanka maadaama uu ka mid ahaa dadkii inqilaabkoodii May 1988 dad badan ayaa lagu dilay magaalada Hargeysa reer Hargeysa waxay ugu yeereen xasuuq dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay dhibkaas ilaa haddana dowladda Soomaaliya kama aysan raaligelin iyo magdhow midna gabagabada barnaamijka Maxamed Siyaad Bare waxaa la dhihi jiray guulwade aabasiyaad jaalasiyaad iyo ereyo kale lamid ah oo ku tusinaya inuu dadka ka sareeyo dadka waxaa lagu dhigi jiray inuu yahay aabihii guusha waxa uu jeclaa inuu aabbo u noqdo horumar kasta oo dalka ka dhacaya ugu dambeyntii jaalasiyaad wuxuu dalka iskaga baxay 27 January 1991 kadib markii caasimadda dalka ee Muqdisho ay kala wareegeen jabhadda USC Siyaad Bare wuxuu maangeliye siyaasadeed ka helay dalka Nigeria halkaas oo uu ku sugnaa ilaa uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria 2 January 1995